Assalaamu calaykum. Muuqaalkani maanta waxaan kuugu sheegi doonaa dad Alle la tartamay iyo kuwa Alle ku kibray iyo sida uu Alle awoodiisa u tusiyay. Waxaa inoogu horeeya markabkii Titanic. Wariye ayaa weydiiyay su'aal ninkii sameeyay markabka oo lagu magacaabi jiray Thomas Andrew, waxaana la weydiiyay xogta markabka iyo badbaadadiisa. Si kibir ay ku jirto ayuu ugu jawaabay, xitaa Ilaahay ma awoodo inuu markabkani joojiyo. Waxaan u maleynayaa in aad ka warheyso wixii ku dhacay markabka. Shilkii Titanic waxa uu dhacay fiidnimo Arbaco 14 Abriil 1912 waxa uu socday ilaa subaxnimadii Khamiista. Markabka waxa uu ka soo baxay Ingiriiska isagoo u socday magaalada New York ee dalka Mareykanka, isagoo markaasi maraya badweynta Atlantic. Waxa uu nawaday 2200 oo qof ah. Markabka waxa uu ku dhacay baraf, wuxuuna ku degay 2 saac iyo 40 daqiiqo gudahooda. Waxa ku dhintay in ka badan 1500 oo qof, intooda badanna waxaa dilay qabowga badda, waxayna ahayd mid ka mid ah masiibooyinkii ugu waaweynaa ee taariikhda xilligaas la diiwaan geliyo. Qofka labaad waxaan ka dhigaynaa madaxweynaha Brazil, Tancredo Neves. Madaxweynahani ee Brazil waxa uu ku guuleystay doorashadii, balse xilka weligiisa ma uusan hantin. Maxaa ku dhacay haddaba ninkani? Wuxuu dhintay 39 maalmood kadib doorashadii, hal maalin ka hor xafladii rasmiga ahayd ee xil wareejinta sanadkii 1985. Inta uu waday ninkan ololaha doorashadiisa ayuu yiri, haddii aan helo 500,000 oo cod ah, xitaa Ilaahay igama hor istaagi karo kursigani. Wuxuu helay codadkii uu rabay, laakiin wuu xanuunsaday ka hor xafladii xil wareejinta, waa uuna dhintay isagoo kursigii aanan korin. Lambarka 3 waxaa inoo ah qoomkii Samuud. Waxay ahaayeen dad xoog badan, ciidan leh, awood badanna uu Ilaahay siiyay, boqortooyo weynna haysta. Ilaahay waxa uu u soo diray Nabi Saalax calayhi salaam si uu ugu yeero cibaadada Alle oo kaliya, oo ay ka tagaan sanamyada ay caabudayeen. Markii hore waa ay rumeeyeen Alle, balse goor dambe badankoodu waa ay ka laabteen rumeyntii. Waxa ayna dileen neefkii geela ahaa ee mucjisada ee Alle uu u soo diray. Nabi Saalax calayhi salaam waxa uu u sheegay in ay ciqaab heli doonaan 3 maalmo kadib maalintii 3 waxaa soo yeertay khaylo weyn oo dhanka cirka ka timid sida qarax oo kale, mana aysan ka badbaadin qofna. Lambarka 4 waxaa inoogu jira Fircoon. Wuxuu ahaa boqorkii Masar xilligii Nabi Muuse. Waxa uuna yiri Fircoon, waxaan ahay rabbigiina sareeya. Nabi Muuse wuxuu isku dayay Fircoon in uu si walba wax ugu sheego si uu Alle u caabudo, laakiin Fircoon waa uu ka dhaga adkaaday. Alle waxa uu ku ciqaabay Fircoon badda. Nabi Muuse iyo qoomkiisana waa uu badbaadiyay. Fircoon iyo ciidankiisiina waxay ku baaba'een badii. Ilaa maantana Fircoon jirkiisa waxa haysta dadka, waxaana looga dhigay dadka in ay ku cibri qaataan oo ay cashir ka dhigtaan. Qofka shanaad waxaa inoo ah sahmiye la yiraahdo Yuri Gagarin. Waxa uuna ka soo jeedaa dalka Ruushka. Ninkani waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee dhulka ka soo arka hawada sare. Waxa uuna gaaray hawada sare 1961. Warbaahinta caalamka waxa ay sheegtay in uu yiri halkani Ilaah kama muuqdo, laakiin markii la baaray codadkiisa waxaa la ogaaday in uu yiri ma garanayo, waana mid la yaab ah. Ma suuragal baa in quruxdani oo dhan kaligeeda ay iska timid? Waa in uu jiraa abuuro weyn oo cajiib ah oo leh koomkani. Laakiin markii dhulka yimid waxa uu yiri ma arag Ilaahay ay rumaysan yihiin kuwa iimaanka leh ee muslimiinta. 1968 ayuu sameeyay duulimaad tijaabo ah isaga oo ku safrayay diyaarad isaga iyo saaxiibkiisa. Waxa ku timid diyaaradii cilad lama filaan ah, waa ayna burburtay. Jirkiisa waa uu basbeelay, waxa uuna noqday sidii dambasta caadiga. 6 waxaa inoogu jira Namruud. Waxa uuna ahaa boqor awood badan dunidana soo maray, wuxuuna ka mid ahaa 4 boqor ee dunida soo maamushay. Waxa uu lahaa ciidan tiro badan, hanti, qasriyo badan dhex taala. Dadku waxay u imaan jireen iyaga oo doonaya cunto iyo biyo. Waxa uuna oran jiray, ma rumaysan tahay in aan aniga ahay rabbigaa? Qofka marka uu baahan yahay waxa uu ku dhihi jiray, haa waan rumaysanahay. Markaasi ayuu siin jiray wax walba uu qofka rabo. Maalin maalmaha ka mid ah waxa uu yimid Nabi Ibraahim isaga oo cunto u baahan. Waxa uuna ka codsaday Namruud in uu siiyo. Namruud waxa uu ku yiri, ma rumaysan tahay in aan aniga rabbigaa ahay? Nabi Ibraahim waxa uu yiri, maya oo rabbigay ma tihid. Namruud waa uu xanaaqay. Waxa uu yiri, ma waxaad leedahay rabbi aan anigu ahayn? Nabi Ibraahim waxa uu yiri, aniga rabbigay waa midka wax dila waxna nooleeya. Namruud waxa uu yiri, taasi waa ay fududahay, qofna waan dilayaa, qofna waan cafinayaa. Kadib ayuu Nabi Ibraahim ku yiri, rabbigay waa midka qoraxda ka soo saara bari
adiga haddii aad run sheegayso galbeedka ka soo saar. Namruud inta uu yaabay ayuu iska istaagay. Kadib dadkii waxa ay ogaadeen in uu Namruud yahay beenaale, waxaana la sheegaa in uu Alle Namruud u soo diray malag kaasi oo ugu yeeraya in uu Alle rumeeyo, balse uu diiday Namruud uuna yiri ha keensado Alle ciidan, anigana waxaan diyaarsanayaa ciidankayga, waxaan rabaa in aan la dagaalo Alle. Kadib Namruud waxa uu diyaarsaday ciidan badan. Alle waxa uu u soo diray kaneeco iyo tixsi yar, waxaana lagu amray kaneeco yar in ay sanka ka gasho Namruud. Waa ayna ka gashay sankii ilaa uu Namruud madaxa xanuuno uuna bilaabo madaxiisa in uu darbiyada ku garaaco, ciidankiisana uu ku amro in ay madax ka garaacaan. Ugu dambeyntiina wuxuu u dhintay kaneecadaas yar ee sanka ka gashay. Alle waxa uu awooday inuu dhulka ku amro in uu laqo Namruud, amaba cirka uu uga soo daadiyo dhagaxyo amaba naar, laakiin Alle waxa uu tusinayay in uu yahay adoon daciif ah. Lambarka 7 waxaa inoogu jirta dhacdo ka dhacday dalka Brazil sanadka markuu ahaa 2005 magaalada Canina ee dalka Brazil. Koox dhalinyaro oo saqraansan ayaa waxa ay go'aansadeen in ay la kulmaan gabar saaxiibtooda ahayd. Hooyadeed gabadhii waxa ay ka walwalsaneyd in gabadheeda ay wax gaaraan, waxa ayna ku dhahday baay gabadheeda Ilaahay ha kula jiro si uu kuu ilaaliyo. Laakiin gabadhii inta ay qosashay ayay waxay tiri hadduu rabo Alle hana soo raaco, gaari waa uu buuxaa, laakiin gadaal boorsada dambe ha raaco. Saacado yar kadib war ayaa la helay, waxaana la sheegay in ay shil xun galeen ilaa booliskii ay garan waayeen gaariga. Arinta la yaabka leh ayaa ah gaariga qaybtiisa dambe ee boorsada taalay xitaa waxaa saarneyd ukuntaasina hal xab xitaa kama jabin, oo boorsadii iyo qaybta dambena waa ay fiicnaayeen. Subxaanallah. Haddaba haddii aad halkan inala soo gaartay waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani, laakiin hanaga ilaabin inaad muuqaalka like gareyso aadna ku soo biirto Sahanka Dunida. Waa meeshaad ka ogaan lahayd runta.